هيا يا أهل البيوت أدوا حقوق الجار فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام. أدوا حقوق الجار فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام. بني آدمكو ومخلوق آن كلغي نولان كريم إنay beled iyo baadiyo wadaagaan oo ay isweheshadaan mooyaane. sidaa darteed ayuu Allah soo dejiyey shuruucdii ay ku wada noolaan lahaayeen iyo xuquuqda ay dhexdooda isku leeyihiin. marka hore su'aashu waxay tahay yaa daris la ah. aathar soo aroortay oo salafka qaar ka sugan sida Xasanul Basri waxaa daris kula ah 40 guri oo ka horeysa, 40 ka dambaysa, 40 ka xigta midig iyo 40 ka xigta bidix. aayada 36 ee suuratu nisaa wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku qeexay isla markaana amray in loo samafalo dariska nooc kasta uu ahaado mid ka fog iyo mid ku dhow intaba. nabiga sallallahu alayhi wa sallamna waxa laga wariyay inuu yiri jibriil kamuu la zuulin inuu dariskayga la dardaarmo ilaa aan mooday inuu dhaxalka wax ka siin doono. حديث كان وحى صوصاري بخاري مسلم. الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يوصي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالجار، فاستمر جبريل يوصي محمدا بالجار يوصي محمدا بالجار حتى يقول عليه الصلاة والسلام ظننت أنه سيورثه. سيدوك لسحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كوريي إنو يري أفر أريمود ليبانت أي كمديهين ومروذ ونافسن قري واسعة درس ونافسن يوغادد في عن أفر كلام النبي وحو شيغي إن لبلغ هلو وحا أغهرية درس كحن هوين إذا حن قادد كحن يوديغان أما قري عريري صحابي أبو هريرة رضي الله عنه أي وحا لقوريي إنو يري نبي صلى الله عليه وسلم وحا أهامد يرهدا الله يو وحن كامغن قال يا درس حن دقمو أن لقا قورين وايو باديها درس كيسوا أو كاوريغيا معنه وحا يهير باديه marka ay meel wada degaan kuma nagaadaan oo kolka ay daaqa iyo biyaha ka dhameystaan qof walba waxa uu u hayaama halka uu doono. laakiin dadka deegaanka rasmiga ama magaaladu way adag tahay inaad kala guurtaan haddii midkiin xumaado. waana taas midda uu nabiga Allah ka magan galay. qof walba oo muslim ahna waa inuu Allah ka magan galaa isagana uu san noqon kan Allah laga magan galayo ee sharta badan. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحال وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. حديث كلا وريي أبو هريرة رضي الله عنه اسلمر كان بخاري ومسلم أي صارين أيا وحي النبي صلى الله عليه وسلم كيري قفكي الله يومالين تدنبر رميي يوسن درسكي سدبن روحي الله يومالين تآخر رميي مرتدي سهشرفو قفكي الله يومالين تآخر رميي هير هذا خير أم هيسك آمسو هذا بهدي أن هيدد الله يآخر سدبا الرميسن وإني نغنى بدقلان درسكينا. haweeneydii dariskeeda dhibta sida ku cad nusuusta waa ahlu nar si kastoo ay u cibaado badnaato. saxaabiga Abu Hurayra radiyallahu anhu waxa uu yiri nin ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam markaas baa wuxuu ku yiri rasuulkii Allah heblaayo waxa la sheegaa salaad badnideeda soon badnideeda iyo sadaqa badnideeda laakiin dariska ay carabka ku dhibtaa. intaa kadib nabiga wuxuu yiri cadaabka ay ku jirtaa. dhammaan cibaadaadkii ay sameysay haweeneydaas naarta waa ay ka badbaadin waayeen oo kaliya waxay cadaabka ku muteysatay dariskii oo ay dhibtay. مع أنها كثيرة الصلاة والصوم والعبادة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها وقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. ninkii ayaa sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri rasuulkii Allah heblaayo waxa la sheegaa soon yarideeda sadaqo yarideeda iyo salaad yarideeda waxay sadaqaysataa xoogaa caano fadhi ah laakiin dariskeeda kuma dhibto carabkeeda. markaasna nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam jannada ay ku jirtaa. bal eeg haweeneydii cibaadada yareed waajibaadkeeda kadib waxay jannada ku gashay dhibkeeda oo ay ka ilaalisay dariskeeda. haweeneydii cibaadada badneedna waxay naarta ku gashay dariskeedii oo ay dhibtay. وتتصدق بالأثوار يعني تتصدق بالإقط وتحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة.
xadiid kale oo uu warinayo saxaabiga Anas bin Malik radiyallahu anhu isla markaana ay soo saareen Dabaraani iyo Abu Ya'la nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ima uusan rumayn ruux baryay isaga oo daragsan dariskiisina gaajeysan yahay arrinkoodiina uu og yahay abwaan Soomaaliyeedna waxa uu yiri haddii dhinac lagu soo dhigo maraq lagu dhiibo oo dhil la culay caanaheedayda ka idlayso oo sida dhurwaa raqi u talgeysna dhuga weydo dariskana dhafoorku uu goto gaajo wada dhoobto wardiinteenu dhigimayso iyo dhaqanka Soomaali ee dhan uu ka xigaba waa inaad dariska dhowrta ugu dambeyntii walaalayaal haddaynan dariska wax u tari karin walbo waa inaan ka ilaalinaa dhibkeena ballanteenu waa inaan ilaalinaa xaqqa dariska على مدى الأيام نتلو حقوق الجاري فالجار قبل الدار وصية الإسلام على مدى